markaa saaxiib marka hore qadiyadda commissionku qof iyo qabiil iyo qoys midna uma taala qiilo ugama bannaana maxaa yeelay waa national issue haddii se la qabiileeyo shalay ayay ahayd raaska aanu ka soo jeedna garxajis nin ah oo aqoon-yahana in dowladdii Siinaaya la soo qoray markiiba waa la celiyey qabiil ahaan maanu qaylin dalka burburaya maanu oran TV maanu talin waa gobiya caadadeeda waanu aamusnay waxaan jeclaa inay qabiilka dhigayaga ay aamusaan oo ay iska aamusaan hadalka boqorkana waxaan u arkaa carabtu waxay tiraahdaa maafish dukhaan maafish naar maafish dukhaan biduun naar qiiq ma jiro haddaan dab jirin madaxtooyada warkeeda ayuu helaa kadibna wuu ku dhawaaqaa marka walaal haddaan dab jirin qiiq ma jireen sidoo kale waxaan u arkaa haddii ay qabiil la dayn waayay oo laga hari waayay nin waliba qabiil buu noqonayaa waddankan doorasho ay kuwaasi ay qabteen thumma wallahi baan labada xisbi mucaarad uga qayb galay wax kasta oo dhaca labada xisbi ee mucaarad doorasho ay kuwan commissionka maanta ay qabteen thumma wallahi inaan uga qayb galay horjoogaha odagooda ayana sida buurmado horjooga xagga kale ugu yahay xaggan aan nahay